waxaa ku guursan kara ninka dadka ugu xun sida aasiyaxaas ugu ahayd Fircawn. haddana taa kama aysan bedelin daacadnimadeeda iyo jacaylka ay Alle u qabtay. sidoo kale waxaa ku qabi kara ninka ugu wanaagsan ragga laga dhex doortay sida Nabi Alle, haddana taa kuma geli kartid janno sida xaaskii Nabi Luud calayhi salaam. sidoo kale waxaad ahaan kartaa qof aan la guursan sida Maryam binti Cimraan, haddana Alle ayaa ka dhigi kara darajadaada mid ka sarreysa haweenka dunida ku nool oo dhan. garo ahmiyadda iyo mudnaanta cidda aad siinayso iyo sida aad u kala hormarinayso jacaylka, daacadnimada, aaminaadda iyo adeecidda. haddii aad Alle ka jiisato awaamirtiisana aad caasiso, ogow xitaa haddii qofka dadka ugu magac maamuus iyo maal badan ku guursado kuma siin karo farxad iyo guul. ogsoonow, diinta islaamku waxay sare u qaaday qiimaha dumarka iyadoo laga soo qaaday dhulka hoostiisa lana gaarsiiyey halka u sarreysa ilaa jannada ay taal cagaheeda hoosteed. adigu dhulka ha isdhigin, hoos ha isu celin, ha u baabi'in naftaada qof ama dadku dhibaateeyey dartood. haddii aad Alle ku xirnaato, naftaadana ka adkaato, wixii lagu faray oo wanaag ahna aad ku dhaqanto, si kastoo dhib iyo xaalado adag kuu soo maraan waxaad helaysaa qanaaco, sabar iyo in Alle darajo sare ku gaarsiiyo adduun iyo aakhiro. ugu dambayn, waxaad tahay boqorad soo saarta caalimka, geesiga, madaxweynaha, imaamyada, hogaamiyeyaasha. maanta hadduu wiilkaagu yahay madaxweynaha ummadda, kadibna uu gurigaaga kuugu imaado adigoo waayeel ah, kadibna aad ka dalbatay inuu cagaha kuu dhaqo kuuna tirtiro, wuu qaadan amarkaaga, ilaan hooyadiisa ayaa tahay. qiyaas madaxweynaha ummadda oo cagahaaga dhaqaya, miyaadan ahayn boqorad? haddaba diinta islaamku waxay ku xirtay taajkii boqortinimada. ha iska dhigin.